قدوك فالكات في القرقار هذا اسمها يدي هي قاعدة ما الأول كمر أول كم الأول يمنام أول كحيلان وحيكون تجبق تامي سالي على اسم يدي وحيكون قدوت هذا القرات سليم وصوصة وطلعتوا أفسمالي. بسم الله الرحمن الرحيم. وأن سلام يا دمان ومد الصوماليات رنتي مقال كيجا إيو هذا الكيجا يعود كيجا بكم مغلد دونتا كاميرا ثم أنا دي سوق بينا إيو وحن دونيا إن رنتي مد دونين إن أرت أن كهلا مرضم به شكدي كسب سنة هسي عبد الجود من كل يرادو وسلعيني إيو أراهدي أن كإيري لكن وحن آدي آد وقحمهاي oon aad uga xumahay in intay ka gudubtay suugaantii la isku qabsanayay in ilaahay dambi laga galay ama aan ka galay in cabdigood uu ugu soo eedeeyo oo wax anigu aanan oran uu runtii igu tilmaamay xuseen oo qul astaghfirullah alazim aad iyo aad baan uga xumahay walaalkay runtii qofku marka uu yahay qof ama isku dayay inuu suugaan ka hadlo ama dhaqanka ka hadla waxa loo baahan yahay aqlaaqiyan inuu yahay qof aqlaaq leh oo runtii ixtiraam leh oo u dul qaadan kara xataa hadii lagu gafa xataa ma garanaysa u dul qaadan kara laakiin waxa runtii marqaati madoonta ah in cabdigood uu ku sufoobay inuu yahay nin aan adkaysi badan lahayn habeenkii ciidii waxaanu wada joognay TV-ga Somali Channel aniga iyo asaga iyo abwaan Faarax Murtiile iyo wariyaha caanka deeqa qalombi Allah hadeystee habeenkaas isaga waxaanu dadweynaha Soomaaliyeed waxay runtii su'aalayn ayay ka jawaabayeen weydiinayeen annagu waxaan rabnay ciidda uun dadka inaan u hambaliyayno laakiin dhibaatadii uu u geystay heesaha qaar ka mid ah ayaa joogsan waayay ka hadalkoodii kadib wuxuu isku dayay inaan arrinta laga hadlin wuu caburinayay dadku inay hadlaan laakiin dadkii waa la celin waayay kadibna waxaan u sheegnay ra'yiga wanaagsan micnaha cabdigood ku hagaagsan in uu markuu wax tilmaamayo in uusan suugaanta keligii uusan micnaha uusan ka hadlin iyadoo markii runta laga hadlo wax markaa doonaysa inaad ka hadasho waxa loo baahan yahay inaad cilmigeeda leedahay waxaan nin aan jaamacad uga soo bixin luqadaha ama murtida ama maasooyinka markii laga hadlayay markii la tirinayo labay kala yihiin marka aad doonayso inaad ka hadasho waxa loo baahan yahay inaad u leedahay cilmi oo shahaado aad u haysto inaad u leedahay laakiin ma habboona hadallada marfashka iyo meelaha dadka marqaansan ay runtii ku hadlaan in wixii aad ka maqashay bulshada dhexdeeda inaad la timaado sharafta kamaan dilin heesta nuxurka kamaan qaadin heesta dadkii jeclaana ma nabcaysiinin laakiin waa himbiliyootikaagii aad ugu soo huntanayso adigu tawaxay aad iyo aad ayaan uga xumahay runtii in uu igu tilmaamay nin ilaahay ku gafay uu igu yiraahdo astaghfirullah dhe taas oo haddii dadka aan ka jaahil bixiya ah wuxuu naga dhaadhicinayaa cabdigood waxaan maqli jiray 4 iyo 10 iyo 100 kan aqaana ayaa ka akhrisanaya qofku haddii uu yahay qof ahludiina oo diinta qofku uu baran karaa uu garan karaa caasina uu noqon karaa caasidiin uu noqon karaa qofku laakiin waxa loo baahan yahay qofku inuu noqdo qof wixii uu yaqaan ku amal falaya bismillahir rahmanir rahim tabarakalladhi bi yadihi al-mulk wa huwa ala kulli shay'in qadir alladhi khalaqa al-mawta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير بسم الله الرحمن الرحيم قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن قالوا سمعنا إلا قرآنا عجبا فتبارك الله خلق أحسن العالمين قالوا سمعنا إلا قرآنا عجبا waxaa loo baahan yahay qofku inuu noqdo qof wixii uu yaqaan ku amal falaya waa xaqiiq in cabdigood marka uu hadlayo uu quraanka sheegi karo laakiin ma malaynayo in laga dhagaysan karo hadduu yiraahdo dad baan wax u aqrinaya oo quraan ku saabsan laakiin waa suurtagal in sida af Soomaaligu uu uga sheekayo waliba aan aamisanahay
in deegaanka meeshii tuuladu ku dhashay luuqadeeda kaliya uu celcelin karo dhismaha iyo dheelitirka iyo dhacdadiisa maan awaalka mur awaalka mala awaalka iyo manaam awaalka ay leedahay waxay ku bugtaamisaa dhacda dhisme iyo dheelitir laakiin waa himbiliyootikaagii aad ugu soo huntunamayso adigu tawaxay xuseen saaxiib haaraan baad waday haaraamkii ay waday iyo tanay joogtaa maanta way kala hiijo dheer yihiin umalaad madaxdiin hasaawihii marqiyaaska maansada heestii ka hadlimayno isna wuu ka hadlo cabirkiisa guud garashada macnawiga ah iyo xeeldheerida garaadkana hayo xoobi هل نقول صاحب شجر ولا حبالة هكذا سيج النلاشة هدان صاحب لندن بوسطون نلاشة واحد بتتنحوها يد سيج أفسمالوجو هو بلارن يهاي دول بلارن إلا كفر إلا وقوي إلا جيبوتي إلا NFD وحلا الدنيا ضدك الصومالي ده شوجا إن اللوقات ده جرنا يسوع أتكهل كرتو رونانتي نين لأن يرى أو هستا ودبعتي اللي يقولد ما شوجا وكذا هس نسني يوسمي أن أعد وجحمة هاي أن ولي بكحشوني إن أنا كوشجنو أيا وحو مركو هستا فسيري وحو يري شير هنكو ينادي ويرنك سيدا وحلي تاسو معناه دو تهاي ده شيركو هدو هنكو شرو هانتاس بكل حشير كرايا ملكله ما جارسين كرور سعد كيسي دقيقيس رونا هانتي وحنا هذا وقعوا هاي إنه يقدر إنان إله عاصي هاي وحتى الحسينو هيستوى حل وسمي 7 سماوات كدشوله سبحانك يا عدل قل استغفر الله بالآدم كلمة ضعف السماء الدنيا 7 سماوات كهضوياتك marka leedahay wuxuu yiri 7 samaawaad ba heestan lagu sameeyay ayuu yiri banbad ilaahay u sheegtay dib dadku waa u dhageysan karaan waxaan yiri heestan waxad moodaa in samada lagu sameeyay laakiin ujeedada aan ka waday dadku way fahmayaan hadaan la rogaynin waxa weeye samada ma ahan samooyinka 7 samaawaadka aan dadku gaarin cirka inta ilaa diyaaraduhu gaaraan ay diyaaraduhu gaaraan ilaa dhulka intaasi waxa weeye waa hawo isla eg weeyo oo isku mid ah waxaan anugu ka waday qof diyaarad saaran oo hawada sare mushaaxaya oo fakaraya waxa uu sameeyay baad u malaysaa ayay ahay laakiin aniga asagoo ka heshiino ka wada hadalay oo iska cafinay oo gaarigiisa igu qaaday oo xaaskiisa sharafta leh ay nala socotay ay marqaati ka ahayd oo abwaanka Faarax Murtiilo ogaa oo deeqa qalumba ay ogayd oo iska gelinay oo aan kala tagnay inuu TV-gi National Balki Somali Channel inuu intuu sidii dadkii baaltooga u hadlayay intuu mar kale ku soo noqdo oo haddana uu intii hadalkii uu go'day sababtoo waxaan aaminsanahay qofka markuu san kalsooni badan isku lahayn wuxuu isku dayaa caloliyoobi ku noqdaan wixii laga sheego isaga ilaahay xaqiisa waan kaaga dhawahay shantayda salaadoodna waan tukadaa nin waxaan ahay aan muqaadaraad isticmaalin waxaan ninaan jaad waligi cunin nin waxaan ahay aan sigaar cabin ninaan khamri cabin waxaan aaminsanahay inaan ka mid ahay dadka nadiifta ee ay runtii ummadda Soomaaliyeed ku dayato waxaan maqli jiray maasaa naagtii gambada taabatay ee gacanta loo mayray ee gelisay meesha xumeed gabaygu Soomaalihan waxaan runtii aan aad ugu doonayaa inaan u sheego mulkiilaha Somali Channel iskale in barnaamijka Cabdi Good ee uu sabtida soo daayo in uu intuusan hadlin ka hor inuu jasuuro soo marsiyo anigu ma oranayo barnaamijka la joojiyo inuu jasuuro soo mariyo waxa uu ku hadlayo mararka qaarkood qabiilooyinku ayuu dhexdoodu ka sheegaa ku caaya qabiil hebel meeshaas muuse jirin halka kama imaanin sida ma noqonin ninka kani ma wuxuu ka sheekeynaya israaca af Soomaaliga Mr. Somali Channel waxay noqotay meel qabiilooyinka Soomaaliyeed qaarkood lagu caayo ma meel waxay noqotay abwaaninta magacyada waaweyn lahaa sida Cabdulqaadir Xirsi Yamyam bilaahi baan ku dhaarshay ninkii sameeyay Soomaali baan ahay ninkii sameeyay guuleed ma jooga ninkii sameeyay dadku ururayo isku tagay dhammaan ma ogaan karaan mooyee isaga ninkii sameeyay mihigaan
maanta asagoo god aakhira ku jira heesta guuleed ee mucjisada ah ee la yaabka ah ee erayadeeda aan la isticmaali karin inuu hees sinaa ka dhigo waxaan ku leeyahay cabdi goodow waxba aniga micnaha wiil yar oday duqaya wiil yar baa loo dadaa hadal waxba aniga hadalka hay maldihin waxba af Soomaali waa weyn oo aan ummadda qaarkood fahmaynin ha u maleegin oo ha iskaga dhigin abqari waa laga af Soomaali badiyaa hal lahjadooda hal tuulood ku dhalatay baad ku hadashaa waxaan ku leeyahay haddaad joojin weydo oo TV-ga channelska lagu siiyay ee ummadda maalin kasta aad ku aflagaadeynayso aad joojin weydo waxay arrintu tagi doontaa meel aad u fool xun haddii aad doonayso inaad dadka iska celiso u yeer noo yeero ishorkaayo fariisi Jaylaani saaxiib baan nahay baad leedahay Jaylaani labadii heesoodu uu suubiyey dadku ay jecel yihiin bad ayaad waxaad ka qaaday sharafta ayaad ka qaaday marqaatina waxa uu ah dadkii daawaday Jaylaani ma aaminsani nin aad xoolihiisii dhaawacday way inuu saaxiib kula yahay sida darteed waxaan ku leeyahay walaal waan ku digayaa anuguna waan ku runtii aqli celinayaa waxa aad wado jooji mujtamaca ha qarribin ha ka hadlaynin suugaanta waxaadan aqoonna faraha la gelin waxaadan shahaado iyo cilmi u lahayn faraha la gelin hees matrisid gabay matrisid ma samaysid faafahinteeduna way ka luntay af Soomaaliga soo baro laamihiisa kala duwan ee inta Soomaalidu degtana soo baro waa runtii markaas aad fahmi kartaa in aad saxsan tahay inaad qaldan tahay waxaan leeyahay dadweynaha Soomaaliyeed iyaga marqaati noo noqonaya haddii ay aniga qalad igu tilmaameen